roobabkii guga ayaa ka curtay deegaano hoostaga degmada Buuhoodle iyadoo roobabkani ay xalay biyo geliyeen baliyada iyo barkadaha tuulooyin dhowr ah oo dhanka waqooyi kaga aadan magaalada Buuhoodle meelaha roobabkani heleen waxaa ka mid ah deegaanada Sool joogto Dhilaalo iyo dhulka baadiyaha ee ku xeeran deegaanadaasi qaar ka mid ah dadka reer guuraaga ee ku sugan tuulooyinkaasi oo la hadlay TV-ga caalamiga ah Universal ayaa sheegay in shalay deegaanadaasi ay biyo ugu dhawaayeen riigaga u jira ilaa 30 kiiloomitir halka maanta ay xaleeda ka cabayaan Sool joogto waxay ku sugantay nimco iyo barwaaqo roobkuna si wacan baan ugu qabon shalay biyaha waxaan laga siinayay 100 iyo 200 baan laga siinay foostay 150 foostay laga siinay maanta baligaan ka dhaansanayna maanta way idin bilaash waa bilaash baligaan ka dhaansanay shalay xagee biyo idin ku dhaweyd shalay ceegaag baa biyo noogu dhaw xagga Kanada iyo Dandan iyo xarir intaas biyo noogu dhaw halkaas biyo noogu dhaw maanta bali walba biyo ku jiro duleedkayga halkan in joogna maanta waa soo joogto ilaahay mahad weeyay dadku abaara oo soo maray iyo waqtiyo adag oo kale gidgisan 12 bilood biyo dhaamis laha xalay rooba helay fiican oo baliga biyo geliyay oo laga dhaansaday oo lagu qaboobay xooluhuna ay ku qaboobeen dadkuna ku qaboobay ilaahina waxa ka rajeenaa in ilaahay noo siisiyo adigu roobku badi baa dhulka ma wada gaadhin laakiin intii uu gaaray waa lagu qaboobay waa lagu nimcaystay alxamdulillah rabbil caalamiin booyadaha ayaa bilaabay inay biyo ka soo dhaamiyaan baliyada biyaha xareeda ah ay galeen waxaana maanta magaalada Buuhoodle halka foostee biyaha lagu gadanayay 50,000 oo shilin Soomaaliya halka shalay ay ahayd 200,000 oo shilin Soomaaliya taasoo muujinaysa isbedelka saacadaha kooban ku yimid ee uu keenay raxmaadka Alle halka saaka waxaan u baahidi jirtay awadeed baahidi jirtay awadeed ee biyaha baadee welina naga hadhno una wada saaka ka horna maanan alxamdulillah rabbil caalamiin saaka noodiyaad waa ladan qadaabaan xareero waran meel walba ka dhaaminayno ka soo goodinay ku jirto waa ilaahay mahad xagee ka soo dhaafisay saaka waxa ka dhaafiyay meesha la yiraahdo Salebaan Oday quraacad ismadana waa ka soo dhaafay labada meelood biyo qabsiyaan ka dhaafay ilaahay mahad magaalada uu shusho hadda halkay joogno halkan waxa weeye qalib kasta la yiraahdaa waa soo joogto samafale Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo nagu weheliyay socdaalkan ku tagnay deegaanada roobabkani ka curteen ayaa cabiraya dareenkiisa ku aadan raxmaadka Alle ee curtay isagoo dardaaran u soo jeediyay dadka Soomaaliyeed nimcada Ilaahay ku shubay shalay dadku halkan haraad buu ugu baqtiyay booyada biyaha waxa ay ahayd $200 iyo wax la mid ah maanta nimcada Ilaahay baa daaday xareed baa la cabaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inoo barwaaqeeyay nimcada Ilaahay baa ina deeqda nimcada Ilaahay baa ina ku filan ilaahayna waxa uu ina ku yiri la in shakartum la aziidannakum hadaad igu shukridaan waa idin siyaadinaya ilaahay waxaan ka baryaynaa marka ugu horeysa inuu ilaahay nimcada inoo siyaadiyo midda kale waxa u baahan inaynu nimcadan ku shukrino in inta roob ina qabto baliyadeenna saa u buuxsamaan dhulku uu biyaha liqo qaarna ay togo iska qaadaan oo ay badaha ku shumaan maalmo kadibna la yiraahdo dad iyo duunyaba haraad baynu u baabaanay waa ayaan daro waa inaynu biyaha ka faa'iideysanaa biyaha iska socdo sidii loo xiro lahaa sidii looga faa'iideysan lahaa sidii aynu uga guri lahayn nidaamka xoolo raacatada xoolo wata aynu ahaan lahayn waxa ka midan inaynu xoolo dhaqato noqono dad bini aadan oo aqli la garasho leh xooluhu ay meel ugu nool yihiin u deegaamaysan yihiin beeralay xoololaya cunada xoolaha loo diyaariyo biyahoodii loo diyaariyo caafimaadkooda loo diyaariyo kadibna laga faa'iido Khadar Cawl Ismaaciil telefishinka caalamiga ah Universal Buuhoodle